taliyaha ciidamada guutada tobnaad qaybtan 41 ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gadow gaashaale sare Maxamed Cadow Cali Sanka oo ay weeliyaan saraakiil ka tirsan kuwa ururka 49aad ee magaaladan Baarlede ayaa maanta booqasho u kurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta dawladda federaalka ee dhawaan loo soo xiray tababarka ku tagay xerada dugsiga tababarka ee magaaladan Baarlede ee gobolka Gadow. taliyaha oo la hadlayay ciidamada iyo saraakiishooda ayaa kula dardaarmay difaaca dalka diinta iyo sidoo kale dadkan Soomaaliyeed ee cadawga ku soo duleen isagoona dhanka kale ku amaanay dhabar adayga ay muujiyeen muddadii ay ku jireen dugsigan. aniga ayaana hordhac waa insha Allah inaan xaqiijiyo waxa ku sugantiin si dawladana sharaftana go'aan ay u qaadato waxa imaan doona hadduu Allah idma qalabkiina iyo saanadiini waxa imaan doona database-ki ciidanka oo dhan waa la record gareyn doonaa waa rajaynayaa sida in ka muuqanayso iyo sida madaxda warbixinteeda ay runtii ku dheehan iyo sida tababarkiina uu ahaa intuba inaad doorkiina qaadan doontaan hadduu Alla idmo. waxaa bilowmi doona meeshaan laga abuuri doonaa oo soconayo qorshayaal runtii lagu horumarinayo deegaankan ama la rabo in runtii lagu gaaro jubada dhexe oo halka laga garaaco laga faramaroojiyo kuwa nabadiidka ah oo khatarta ku ah Soomaaliya meelaha istiraatiijiga ah oo dawladdu ay rabto inay runtii maxaa la oran jiray dalka ay ka xoreysana Baardheer koob ay ka noqonaysaa. ciidamadan waxa ay qayb ka yihiin ciidamada xoogga dalka ee dhawaan ka xoreyn doona deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ay ku dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan gaar ahaan deegaanada Jubbooyinka iyo gobolka Gadow. Umar Idris Ahmed, warbaahinta qaranka, magaalada Baarlede ee gobolka Gadow.